deegaanka dacdheer ee ku dhow xuduud beenaadka Itoobiya iyo Soomaaliya qiyaastii 70 kiilomitirna kaga beegan waqooyi bari magaalada Cadaado waxaa ku nool ilaa 800 oo qoys oo xoolo dhaqato ah. Dadkan ayaa bilihii u dambeeyay iyaga iyo boqolaal qoys oo kale oo ku nool deegaanka ka xandhaale waxa ay dhibaato isdaba joog ah kala kulmayeen dowladda dhulka ballaaran inaga heysata ee Itoobiya. Horaantii sanadkan aan ku guda jirno ee 2016 ayay marqura bulshada dacdheer ku baraarugeen ciidamo Itoobiyaan ah oo amar ku siinaya inay dhowr cisho gudahood uga guuraan deegaanadooda, balse dadka deegaanka oo aan garanaynin meel ay qabtaan ayaa qeeladhaan afka labadii yeeriyay iyagoo codsiyo hoose iyo kuwo koraba u dirsaday cid walba oo ay islahaayeen waxbay idin tari kartaa. ma jirto cid ka hoos qaaday calaacalkii iyo cataawgii ka baxay xoolo dhaqatada dacdheer iyo ka xandhaale marka laga reebo odo dhaqameedyo iyo siyaasiyiin ku heeb ah dadkaasi oo dowladda Itoobiya ka codsaday inaysan barakicin dadkan masaakiinta ah. Markii ay dadkan xoolo dhaqatada ah ka quusteen gurmad iyo samata bixin ay ku helaan deegaanadooda ayay dantu ku kaliftay inay u soo barakacaan deegaanada Miircooleed iyo Ballicad oo labaduba dhaca gudaha fog ee Soomaaliya. intaa kadib maleeshiyaadka Soomaalida ah ee loo yaqaan New Booliska oo ay Itoobiyaan ku sameysteen ayaa goor aroor ah ku soo dheelmaday barakacayaashii oo ku noolaa baco ay kaga gabaadsanayeen qorraxda iyo roobka. maleeshiyaadkan oo u muuqday kuwo qorshe degsan ku socday ayaa dadkii barakacayaasha ahaa si aan kala sooc lahayn ugu geystay tacadiyaal. waxay laayeen dad fara badan, waxay kufsadeen dumar, iyagoona ugu dambeyn dab qabadsiiyey bacihii masaakiintu ku gabaadsanayeen. qaar ka mid ah bulshadii dhibaatadu soo gaartay oo u waramay warbaahinta dhexdhexaad ayaa ka warbixiyey waxa ay la kulmeen. bootintii hore iyo tii dambe nooga daba yimaadeen caruurahayaga iyo dunyadeena meeshii jiraan ku guftay aqaladii iyo waxaan ku nooleyn meeshii aan oganin hadda nafteenadina meesha la nimid hadda la ku raahay ilaahayna meeshaan hadda nooga daba keenay. هي maxaa kala dhibaato aragteen? wax kala dhibaato waxaan aragnaa saqiirada meydka iyo dunyada daadsan iyo hadda la ku raahay maal iyo magaalada ka tagno caaladii qaateen hadda la ku raahay dhar iyo dhawr midna aysan ugu reey. هي dumar dhibaato ma jirtaa? ma yara markii naftii inta la daleen maagan xoolihii doontana waa mid ay kufsadeen oo hadda la ku raahay xoolihii ka ceyrsadeen tafiyo dhiig ka horaay soo ceyriyay. diis wata yeena ugu geynaa waxaan la ku dilayaa wadanka noo kaca anaga leh dawladana Soomaaliya aan niri dad wadanka u dhashay oo ku dhaqmi jirana waana dawlad hadaa tihiin dawladdu hadda dadka shicibka iskuma baabi'ide waa la kala haga ka dawlad lama diri karnaa niri dad shicibahana iskama dhici karno. arrinta la yaabka ku noqotay guud ahaan bulshada gaar ahaan waxgaradka ka soo jeeda beelaha dhibaatadu ku dhacday ayaa ah halka ay ka istaagtay galmudug difaaca dadka rayidka ah ee ku dhaqnaa dacdheer iyo ka xandhaale. waa kana Maxamed Xasan Geelle oo ka mid ah xildhibaanada maamul goboleedka galmudug oo cabiraya aragtidiisa ku aadan dhibaatada dhacday iyo sida ay ula dhaqantay galmudug dadkii dhibanayaasha ahaa. dhacdada halkaa ka dhacday waxay ahayd dhacdo aad u foolxun, waxay ahayd dhacdo dhibaato aad u weyn xambaarsan, lagu tilmaami karo dhacdooyinka dhibaatada ee dhaca kuwa ugu waaweyn ee ka mid tahay. waayo waxa lagu qiimeeyahay marka dhibaato laga hadlayo waa bini aadamka, isaga ayaa noolaha dunidan ugu qiimo badan. dhibaatada isaga soo gaarta ayaa inta badan ah waxa wax lagu miisaamayo. marka maadaama dad 20 ilaa 30 u dhaxeeya oo dhimasho ah ay hal dhinac ka dhacday, waxaad fahmaysaa dhibaato weyn iyo khasaaro weyn in halka ay ka dhaceen. sidaas oo kale waxa ay dhacdadu xambaarsanayd barakac baahsan oo waliba xilli adag ku soo beegmay, xilli jiilaal adag lagu jiro, kulaylku uu badan yahay, dadku aysan xamili karin dhibaato noocaas ah, in ay dadkii guuraaga ahaa ay ayaga iyo xoolahoodii iyo ilmahoodii kala lumeen. marka waxaan oran karnaa dhibaato aad u ballaaran baa ka dhacday halka iyada. waxaan u arkaa
si aan galmudug ku habboonayn ama aan mas-uuliyad ku habboonayn inay galmudug ula dhaqantay dhacdadii halkaa ka dhacday. Sababtu waxay tahay galmudug haba yaraatee maamul ahaan wax dhaqaaq ah iyo wax hadal ah iyo wax ficil ah oo halkaa ay ka geysatay ma jirin ilaa ay xaaladdu iskeed isaga istaagto. wixii dhiman lahaa ay dhinteen, wixii barakici lahaa ay barakiceen. anigu waxaan qabay ama aragtida aan qabaahay waxay ahayd oo ka saarnayd dowlad goboleedka galmudug waa wax macruuf ah oo la isla yaqaan. dowlad shacabkeeda waxa ka saaran waxay tahay in ay shacabka ilaaliso, inay shacabkeeda difaacdo, in ay shacabkeeda wax kasta oo dhibaato ah ay uga gurmato. dhibaatooyinka marka waa kala duwan yihiin. markay tahay dhibaato uga imaanaysa dowlad kale iyo dal kale, waajibka ugu horeeyo saaran waxa uu ahaa sidaan waan u arkayo in ay awood ahaan horta u difaacdo oo ay u gasho oo ay dadka difaacdo, isla markaana ay diblomaasi ahaan xiriir ula samayso maamulkii dhibaatadaasi ay dhex maraysay. laakiin galmudug waa ay ka gaabsatay wax gacan ah oo difaaca dadkaas ay ka geysatay oo anigu aan ogahay ma jirto. madaxweynaha maamul goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed waa mas-uulkii ugu horeeyey ee Soomaaliyeed kaas oo deegaanada lagu dagaalamay u intiraafay inay Itoobiya leedahay. balse su-aasha isweydiinta leh ayaa ah siday ku yeelatay Itoobiya deegaanka Dacdheer. mid ka mid ah aqoon-yahanada ku dhaqan magaalada Cadaado oo xaalad amni u diiday inaan muujino shakhsiyadiisa ayaa inooga warbixiyey taariikhda u beddeshay Dacdheer dhul Itoobiya. aqoon-yahanku waxa uu inoo sheegay in xuduud beenaadku ku ekaa halka la yiraahdo Qorof oo wax badan dhinaca Itoobiya ka xigta deegaanka Dacdheer, balse taariikhda lahaasho ee Itoobiyaanku ku sheegteen deegaanka ayaa kasoo bilaabatay xiriirkii dhexmaray iyaga iyo jabhadihii qabiilada ee dagaalka kula jiray dowladdii Siyaad Barre. inkastoo xiriirkan 30 jirsaday iyo burburkii dowladdii Soomaaliya oo iskaashanaya ay ku dhiirisay in Itoobiyaanku sheegtaan Dacdheer, ayaa haddana guud ahaan Soomaalida gaar ahaan waxgaradka deegaanku aaminsanayeen in Dacdheer ay ka mid tahay dhulka Soomaaliya. 24 bishii koowaad sanadkan aan ku guda jirno ee 2016 oo ku beegneed qiyaastii 4 asbuuc ka hor sheegashada Itoobiya ee Dacdheer, waxaa telefishinka qaranka Soomaaliya laga sii daayay warbixin ku saabsaneed shacabka Dacdheer oo ka cabanayay biyo la'aan ka jirta deegaanka. warbixinta ayaa sidoo kale waxaa ka soo muuqanaya xubno isugu jira ganacsato iyo qurbo-joog ka soo jeeda deegaanka oo dhagax dhigaya dhismo waxbarasho, intaas kadibna baaq u diraya madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, wasiirka arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Odeywaa iyo madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed. deegaanka Dacdheer oo Cadaado hoos yimaada dhinaca waqooyi barina ka xiga 70 kiiloomitir oo ah dhul daaqsimeed xooluhu ay ku badan yihiin ayaa waxaa ka taagan biyo la'aan saameysay dadka iyo duunyada. deegaankaas ayaan lahayn ceel biyood, waxaana laga cabaa ceel gacmeedyo dhaadheer oo aan biyo fiican lahayn. qaar ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in xilliyada jidaalku dheeraado ay ceelashani guraan lagana hayaamo deegaanka markaas oo fuustada biyaha ay gaarto 70,000 oo shilin Soomaali ah. على حسين قش آد ياد بنبيها وقول بعد السنة هاي وحوي دتكو وحوي مركي نقنا ونرسو جورا مركي شيلال الوان الكبورة ضد يربع ماشي كوارا. هي صوت محيطها. صوت بيلان أوجد. هي أبو غادر ديري. إن أبيها دبعت بدن بكتيرته وحلاقة شكين كرم معهن دتكو يدنيو دبواكو باختيان بيلان أوجد بوبحان. dad badan baa jooga wax biyana ma haystaan, waxa biyo ugu sokeeyay Cadaado iyo biyo guduud. haye dhibaato badan baa lagu qabaa. hadii la helana waa qaali oo dadka danyarta ah ma gadan karo, hadii kalena waa la waayaa. caafimaad ka waran isaga dad iyo dunyada caafimaadka sidoo kale weeye wax adeeg bulshada kama jiraan, dadkuna waa ku dhibaataysan yahay. inta bini aadanka xanuun soo maraysa meeshaas aan sheegnay baan ugu sokaysa wixii la qaadan haatan waxa u badan tahay inay dhexba ku baxaan. Caruuseen Nuur Shuuriye iyo Farxaan Maxamed Doore oo kamid ah waxgaradka gobolkan oo deegaankaasi booqday ayaa iyaguna qeyladhaantooda ku biiriyay in wax laga qabto baahiyada deegaanka Dacdheer. baxay
waxyaalo fara badan sida caafimaadka oo kale sida biyaha oo kale sida maxaan ku raahdaa kaabayaasha kale oo dee bulshada u baahan tahay oo kale inay seera ka yihiin waxaa naloo sheegay halkan dad inay ku dhinteen arrimo caafimaad awgood waxaan aragnay ceelkii biyaha oo ay gacanta ku qoteen ilaa 70 mitir oo halkaas ay tabarta uga furatay sidaa darteed wacyigelin badan iyo iswaraysi fara badan ka bacdi waxaa noo soo baxday inaan waxbarashadii 3 qol iyo musqulahoodii waxbarashada xaggooda inaan dhagax dhigno ayaa noo soo baxday caafimaadkana wixii tabaroo kale aan ka qaadano biyihiina abaabul heer dawladeeda aan u galno ilaa iyo madaxda galmudug ilaa iyo federaalka aan ku qayl dhaamino baaq waxaan leenahay dadka ama siyaasadda haya ama siyaasadda daneeya 800 oo qoys oo lagu dhiftay xaaladda maanta la joogo calaa qoys 10 ugu yaraan haluminina runtii xaqiiqatan waa dad bilaadanku maanta wuxuu ku xisaabtamaa dad wuxuu ku xisaabtamaa cod wuxuu ku xisaabtamaa dhaqaalo yaan la lumin maanta reer dacdheer codsigaas waxaan u jeedinayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan u jeedinayaa wasiirka arrimaha gudaha waxaan u jeedinayaa madaxweyne guuleed waxaan u jeedinayaa dhammaan inta siyaasadda dadka deegaankan ka soo jeeda ku xisaabtama maanta haluminina reer dacdheer maxamuud cabdi diirshe raadiyaha iyo telefishinka qaranka Cadaado sida aad wada aragteen warbixinta ayaa cadeynaysa in madaxweyne guuleed ka hor aysan jirin cid deegaanka dacdheer ku sheegta dhul Itoobiyaan ku leeyihiin si kastaba ha ahaatee xildhibaan Geelle ayaa inoo sharaxaya inaysan jirin xuduud ay isku waafaqsan yihiin Soomaaliya iyo Itoobiya xuduudana inta aniga ay aqoontayda iyo inta aan xogaalka u ahay ay gaarsiisan tahay xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliya u dhaxaysaa ma aha xuduud ee labada dawladood ay isla aqoonsan yihiin ma aha waxaan wada ognahay Afrikada markii inta badan ay xorriyadda qaadatay madaxdii markaas soo hogaamisay inay soo jeedisay 2 qodob oo ahaa si dhibaatada loo yareeyo in xuduudihii isticmaalka la wada ictiraafo dadka laga tirada badan yahay ee xuduudaha ku jirana xuquuqdooda la ilaaliyo Soomaaliya dawladda kaliya ayay ahayd ee Afrika ee heshiiska aan saxiixin oo aan ka mid noqon taa macnaheedu wuxuu yahay xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya waa xuduud aysan labada dawladood heshiis ku ahayn qolaba aragti bay ka haysataa Itoobiya aragti bay ka leedahay xuduudda dhanka Soomaaliya ka jirta Soomaaliyana xuduudda ka jirta dhanka Itoobiya aragti ayay iyaduna ka leedahay siyaasiyiin iyo waxgarad fara badan oo Soomaaliyeed waxa ay rumaysan yihiin in Itoobiyaanku xilligan isticmaalayaan siyaasad cusub oo tii hore ka duwan siyaasadan cusub ayaa u xaqiijinaysa Itoobiyaanka inay si sahlan ku askareystaan qabiilada Soomaaliyeed ee dega xuduud beenaadyada u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya tillaabooyinka ay siyaasadan cusub ku xaqiijinayso Itoobiya ayaa waxaa ka mid ah inay ka faa'iideystaan dhaawacyadii ay reebeen aanooyinkii qabiilada Soomaalida hore u kala gaaray sida in ciidamada New Booliska loo geliyo shaati qabiil oo markaas lagu xasuuqo qabiil kale kadibna qabiilka dhibanaha ah loo soo bandhigo inuu ka mid noqdo federaalka Itoobiya si loogu sameeyo ciidamo New Boolis ah oo ay isku difaacaan qorshahan ayaa sidoo kale dadka qaar waxa ay qabaan inay ku gacan siinayaan Itoobiyaanka dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira xildhibaan Geelle oo aan wax ka weydiinay arrintaasi fakarka uu ka qabo ayaa inoo sheegay in eedani ay qayb ka tahay eedihii horeyba loogu eedeyn jiray dawladda dhexe iyo maamulada waa eed ku soo laabanaysa laakiin anigu fikir ahaan ma qabo waxa ay hadda dhacdadan looga eedeynayo galmudug iyo dawladda dhexe waxay la mid yihiin eedihii dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada kale ay hore u sameeyeen marka wax cusub ma aha Soomaali hadda dhulka laga hadlayo oo la leeyahay midalan xuduudii halka waxaan ognahay dalka Soomaaliya waxa ku jira ciidamo Itoobiya oo aan waliba mandate iyo sharci midna u haysan cidi weydiistaan aan la arag saacad ay rabaan soo gala dawlad goboleedyada oo dhan ay si gooni ah
heshiisii ula leeyihiin xiriir ula leeyihiin ayagoon usoo marin dowladda dhexe marka arrinta hebel iyo hebela meel bixinaya arrintu ma taagne waxay taagan tahay in si guud qadiyadii Soomaaliya in dib ay Soomaalidu isugu laabato muxaafadkeeda iyo mucaaradkeeda dowlad goboleedyadeeda iyo dowladeeda dhexe mowqif cadna laga soo saaro qaabka loola dhaqmayo Itoobiya